bismillahi raxmaan raxiim halka waxaynu ka bilaabaynaa casharkii ugu horreeyey aynu ku sharxi doono Corel Video Studio. Wuxuu ka mid yahay barnaamijyada lagu edit gareeyo fiidiyowyada nooca ugu wanaagsan ee uguna qurxinta badan leh video editing-ka, isagoo uu ka horeeyo barnaamijka Pinnacle Studio oo isagana gooni u dhigi doono. Corel-kan ayaa noo dooray waayo Corel-ku wuxuu uga horeeyaa Pinnacle-ka xagga fudaydka. haddaad kan fahanto Pinnacle-kan wuu inoo fududaan doonaa. marka wuxuu ka kooban yahay kan file buu ka kooban yahay. waxaan sharxi doonaa bahada file iyo waxa loo isticmaalo intaas. New project weeyaan control plus n waxaan kusoo sharxnay Camtasia haddaad soo fahantay. hadda new project waa fahamsan. new project hadda kanaba de haddanaba yaaba new project ya warqad cusub waa tan. marka open project waxaa la isticmaalaa markaad save garayso shay aad halkan ku dhistay adigoon u bedelin formatada kale ee aad ku save garayso Corel ahaan ayaad open goodhow shaqeynaya. export as template baad uga dhigi kartaa. waxa uu dheeraadka leeyahay aad ku wanaagsan. wuxuu leeyahay smart package oo aad zip warqadaha faylasha codadka videoga ee zip ahaan lagu soo diro aad ku keeni karto halkan. hadda dadkan tijaabiso waa kan save current project marka zip ahaan ayaad ka dhigaysaa. patch comfort ayuu leeyahay. waa waxyaabaha uu Corel-ku uu ku horeeyo. marka shayga u baahnayd ayaad kusoo daraysaa add mathalan add battery. hadda waxaan sameynaa sameynaa okay markaasaan leeyahay open kadib halkaa markuu joogo waa kan ayaa waxaan sameynayaa save as. waxaad u save garaysaa nooca save as tape nooca loo save garaynayaa waa Microsoft AV files. marka waxaad ka dhigi kartaa intan oo nooc. wuxuu wataa converter yar oo caalami ah. waxaad ka maarmi kartaa any video converter-kii aynu soo dhignay multimedia ku jiray ayaad kaga maarmi kartaa. wuxuu wataa converter-ka doon. marka kanaad ka dhigi kartaa ayarun baad leedahay convert u bedel shaygan waxaad u bedeshaa MPEG oo ah kuwa DVD-yada lagu sameeyo dabadeed lagu daawan karo DVD-yada caadiga. marka very important weeyaan in file-ka nooca loo save gareeyo waayo TV-yada inta badan isticmaala oo wax soo saara. marka haddaad doonto QuickTime movie file baad ku save garan kartaa. MPEG 4 files baad ka dhigtaa adoo MP4 ka dhigaya. intaasoo system leeyahay. Microsoft Media video wave baad ka dhigi kartaa. marka converter-kaas wataa waa patch converter ku jira file. wuxuu kaloo wataa export inaad waxaan email ahaan inaad ka samayn karto, email ku diri karto, inaad movie screen saver ka dhigi karto, inaad DV recording samayn karto. relink buu leeyahay. waa waxyaabaha cajiib ku yahay baa relink ayuu leeyahay. marka wuxuu leeyahay waxaad keeni kartaa insert media file to timeline video baad keeni kartaa. insert video baad tusaalaan sande video baad ka keenaysaa. marka all formats hadda halkan waa maxay okay halkan noo kan documentiga halkan kanaad keeni kartaa. waxaad oranaysaa open kadib wuxuu keenayaa halkan waa ku keenay. markaad rabto inaad video keensato halkan ayaad waxaad tegaysaa file meelo badan oo kale meelo kale oo arki doonaa laakiin halkan aad keeni kartaa. ayaad markaas tegaysaa insert media file to timeline markaasaad video keeni. sawir baad keeni kartaa, subtitle baad keeni kartaa, audio aad keeni kartaa adigoo cod aad duubtay amba mid hore loo duubo CD lagu gubay aad ka keeni karto. very important. halkana video aad keeni kartaa. waa goobta labaad. insert media file to library video aad keeni kartaa. photo aad keeni kartaa. insert dheh si aanad camali ahaan aad u aragto. hadda picture nooma yaalo. hadduu halkan bay noo gal goobta macluumaadkeenu gelinaa ee computerkayga. waxaan teginaa backgrounds. halkaa backgrounds waa kan waad arkaysaa. okay open baad leedahay. waa kuwa okay markaynu tagnay file aynu keennay footada
halkan waa taynoo taala wata halkan waa ku tusaya iyadoo background ana waa kan goodho marka kusoo darsan baran doonaa qaabka loo sameeyo hadda waxaad keeni kartaa audio keeni kartaa codka meesha doontaad keeni kartaa codka markaad keenayso isagana halkay noo gal inagu programka waxaan ku baranaa qaab xagga khayrka uga faa'iideynaa sharka uga faa'iideynin waa xaraan weeyaan shar uga faa'iideyso marka waxaad teginaa ruqyadan ayaynu keeni karnaa tan oo kale okay marka waa kan markaas leedahay halkan waad ka bilin garan kartaa yani waxaad ogaan kartaa codka aad keenaysaa siduu noocu yahay hadda waa ka marka waa quraanka weeyaan marka halkan waad ka bilin kartaa auto play baad tegi kartaa markaas leedahay waa kan okay marka sidaa yahay baad leedahay open haddaad info doonayso info information weeyaan waa macluumaadka ku saabsan shay filekan ayaad wax file formatku waa mp3 file sizekiisu intaasoo kb weeyaan duration intuu soconaya waa intaasoo per second video tapeka total frameka waa none inta kale audio tapeka waa mbeg audio layer markaa saasuu kugu wadaya bitratekiidu waa 40 kb per second okay marka open baad leedahay halkan uu ku keenaya u fiirso dhinacaas uu keenaya waa taxruqiya sudaysi marka hadda file 10 waxaan ku fahnay file inuu yahay new project marka project cusub furanayso oo hadda new project taado wuxuu leeyahay kan hore miyaan save gareeya hadda aad tiraado warqadii ku soo dhigay savinga hadda haddaad tiraadana project cusub san kugu furaya openna waxa weeyaan markaad save gareyso projectiga aad u save gareyso qaab Corel ahaan export as template ahaan oo kale ayaad ka dhigi kartaa smart package play comfortable waan tijaabiyay exportable waxaan dhan baad gudbin kartaa dv recording web page email waxa screen video screen safer marka hadda ataaba inta inoo tijaabi wuxuu ku leeyahay the source file is not supported features waan aqbalsanin buu leeyahay laakiin waanaad u ogaataa unsaas halkana waa exit hadda 10 waxaan ku fahnay file oo kamid ah Corel Video Studio